حسبيجي أمتيو عدلي قتبيو إلا على أركون كتيريو حسبيجي أمتيو عدلي قتبيو إلا على أركون كتيريو حسبيجي أمبا قادماني يقول أقول توتي اعتراف كسيدو اعتراف كسيدو حسبيجي أمبا قادماني يقول أقول توتي اعتراف كسيدو اعتراف كسيدو عاديقو وحتا هاي هلا أنيقو وحنا هاي هلا رجدو وحما سما تريو أربيقو ووضا هلا maanta ay bishu tahay 4 bisha 12aad 2024 kulan warbaahineedkan anaga urur siyaasadeedka ilaa waxaan dadkayga doonayaa taageerayaasha u sheegno anagu gudoomiyaha gobolka Togdheer waxaan doonayaa taageerayaashii urur siyaasadeedka ilaa dhamaantood ee gobolka Togdheer maadaama maanta aan lahayn soo baxyo ballaaran oo aan khayriida ku balansan aan ku qabanno sidii ajandaha mashruuca ku dejisnaa waxaan doonayaa in la wadaagno taageerayaashayda ballaadna ee aan muddo dheer wada shaqeynay hawsha noo socoto inaanu hawshii marxaladda aan marxalad ku bedelay taasoo waxa weeye dalkii dagaal baa qayb ka mid ah ka socda gaar ahaan gobolka Togdheer dhinaciisa bari magaalada Qorlugud dagaalka oo dad badan oo reer Soomaaliland ay isku hayaan dagaalkaas dagaal xoogaysan noqday waxaanu markaa door bidnay halkan u soo baxyo iyo bandhigyo iyo fantasi qaban lahayn aan dadkayga la dareen iyo shacabka la dareen noqono oo dadka la dareen noqono wixii aan awoodayada aanu gaarsiino taasoo dadkii dhaawacmay iyo dadkii laga dhintay labadaba aanu gaarsiino hadii la ka dhigo gaarigan iga dambeeya hadii la ka dhigo waxa weeye socod baan nahay waxaan tageynaa Qorlugud baan tageynaa wixii ilaahay waxaan ku noogu dhiibay waxa weeye waa gaarsiinayna wixii dadka dhaawacmay insha Allah taala waa maraynaa hadii la ka dhigona waa maraynaa marka waxaan doonayaa dadkii ku ogeysiiyo taageerayaashii ballaadna ee muddo dheer wada shaqeynayaan inaan ku ogeysiiyo barnaamijkeennii maanta ku beegna oo isniina inaanu xagga u bedelay oo barnaamijka khayriga aanu ku bedelinay oo hadii la ka dhigo asaan isku ogaan doono hawlgalkeennii iyo barnaamijyadeena halkeen uga sii socon doona hadii la ka dhigo waxaan noo ballan hadii la ka dhigo 13 November iyo hadii la ka dhigo iyo codayntii iyo kalkuridkii hadii la ka dhigo wacyigelinta iyo awareness-kii halkeen uga socon doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxyadii aan u lahayn 4 bisha aanu ku sameeyno magaalada Burco waliba khayriyada saal ajligeed waxaan u baajinay shalay toole sabab la xiriira arrimaha ku soo kordhay gobolka Togdheer waxaananu qorsheynay inaanu ku bedelno wixii aanu ka tari karayno taakulayn dadkii ay soo gaadhay dhibaatadu ka soo gaadhay dagaaladii dhacay ee ka dhacay Qorlugud hadda waxaanu ku sugannahay hospitalka guud ee magaalada Burco anagoo ka nimaano ka soo baxnay dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay dadkii ku dhaawacmay dagaalkii waxaananu wixii aanu taakulo ka geysan karaynay ka geysanay dadkii dhaawaca culus soo gaadhay waxaanu sidoo kale saaka aanu u dirnay wixii aanu kaga tari karayno dadkii ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay Qorlugud faamiliyadii taakulo aanu isleenahay maaha mid ballaaran laakiin intii karaankayga aanu kaga qayb qaadanay marka ugu horeysa waxaan doonaynaa asahur ilaa ahaan inaan laba fariimood u gudbino marka hore dhammaan bulshada Soomaaliland marka koobaad dhammaan bulshada Soomaaliland marka labaadna dadka ay soo gaadhay dhibaatadu ee ku nool magaalada Qorlugud dhammaan dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in aynu inagu soo food saaran tahay doorashadii xisaabta iyo madaxweynaha loogu tartamayay dhici doontana 13 November waxaan u sheegaynaa inay si nabada dadku ay ku codeeyaan difaaca qaranka iyo dalkana meel looga soo wada jeesto si la midana lagu galo doorashada si nabada waxaanu si gaar ah ula qaybsanaynaa dhibaatada soo gaadhay dadka degan magaalada Burco khaasatan dadka degan Qorlugud dhibaatada ka soo gaadhay dagaalka waxaanu leenahay intii dhimatayna Allah ha u naxariisto inta cusbitaalada ku jirtana Allah ha u boogaydhiyo waxaanu carabkayga ku adkaynaynaa in aanu ku baaqayno mar koobaad iyo mar labaadba inay dadka walaalaha ah ee wada wadaagta ah ay arintooda ku dhameystaan si nabada
arrimaha colaadaha ah ee inagu soo noqnoqonaya ee ka soo noqonaya dhinacyada bariga Somaliland ascaanood iyo dadka wada degaa ee Burco iyo Ceerigaabo iyo agagaarkeeda oo dhan waxaan leenahay dad walaalaatiin dad ooda wadaagaatiin dad wax badan wadaagabaatiin ku soo arintiina colaadaha ku soo dabaqa nabad iyo wada hadallo inaad ku soo dhamaysaan sidoo kale waxaanu maanta qorsheynaynaa inaan fagaarayaasha gobolka Sanaag iyo magaalada Caynaba ka sameeyno si lamida sida Togdheer aan uga joojinay dhamaan gobolada bariga waxaanu hakinay fagaarayaashii aan doonaynay inaan kula kulanno taageerayaasheeda annagoo mar labaad aan ku celiyay qayb ka qaadanayna dhibaatooyinka ka dhacay gobolka Togdheer inaan wixii inaga gudboon duco iyo haday tahay taakuleen baanu qayb ka noqono waanan soo ducaynaynaa dhamaan dadka dhibaatadaas soo gaadhay taageerayaasheedana waxaan leenahay gobolka Togdheer waxa fooday nagu soo haysa 13 bisha 13 November lambarka urur siyaasadeedku waxa weeyaan lambar 7 gobolka Togdheer waxaynu ku leenahay xafiisyada hala tago hala laga shaqeeyo si lamida dadka jooga Sanaag iyo dadka jooga Caynaba iyo dhamaan inta hoos tagtaba waxaan u sheegaynaa in loo diyaar garoobo doorashada nagu soo food kale waana idin salaameena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh